dalka inuu burburiyo qorbi u maleeyaa qoriga waa laga horreeyey qoriga iyo xabadda maxaa ka horreeyey qalin baa ka horreeyey ummadda qalin baa lagu xaday qalin baa lagu dulmiyey qalin baa lagu dhacay kadibna hadal iyo qowl baa ku xigay iyo cabasho kadibna qorigaa ku xigay marka anagu qorigaan u jeedna ma ahane waxaa qoriga keenayba maba loo jeeda qorigaan qalin khaldan baa keenay qalin tuug ah baa qoriga keenay cabasho ayuu keenaya haddii maxaan kula cabashada maaragta la iska xaalmarin waayo oo laga jawaabi waayo qori baa ku xiga marka waxaan rajeynayaa xaafiiskani waa xaafiiska dhisahaya asbaabtii dalka burburisay in ay ar loo daaweeyo oo maaragtay hantidii iyo awood dowladeed oo si xun loo isticmaalayay in si fiican loo isticmaalo si dadku maaragtay isku kalsoonaadaan baa ka socotay meeshan insha allahu tacaala marka haddii middaa lagu guulaysto dadku kalsooni iyo isku imaatin ayaa samaysmaya insha allahu tacaala tilmaamahayo dadkii xoolaha caamka xada oo ummadda waxa ka dhexeeya si gaar u isticmaala inay dembi gaara leeyihiin si gaara ayaa loo fadeexaday maalinta qiyaame si gaar baa farta loogu fiiqaya laba qoloba maalinta qiyaame si gaara ayaa loo fadeexadeynaya ilahi subxana wa tacaala ceebteena ha asturo mid waxaa weeye qof kastoo khaa'in ah ama qof kastoo dhagarqaba ah dhagarqabe kasta calan baa loo taagay maalinta qiyaame waxay leeyahay calankaas ma ujeedaan hebel calankiisii khiyaanadiisii wey kale waxaa qof kasta oo xoolo xaday xoolihii uu xaday isagoo wada ayaa la soo saarayaa qiyaama isagaa keenaya isagaa isdhiibahaya oo meesha imaanaya marka dunuubta kale ma muuqato laakiin dembiga khiyaanada dhagarta waa la muujinayaa nabiguna sala allahu alayhi wasalam wuxuu noo sheegayaa maalinta qiyaame marka siraadka la marahayo oo xaalku culus yahay laba shay ayaa siraadka waardiye ka ah oo dadka reebaysa labada maxay yihin talow salaada ma soonka ama zakada kulli waa arkaan culus weeye laakiin laba shay baa la sheegay mid waxaa weeye amaanada bay ku dheg baa la odhanaya kan kale waxaa weeyaan qaraabada qofkii asna qaraabada gooyey halkaasi ku sugaysaayo ay u taagantay marka in shaqada lahayo la fahmo oleyska eedaheeda maarata ay leedahay ayay diinteenu na baraysa nabiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu oran jiray isagoo ka digaya xoolaha caamka ah haba yaraadeene war xoolaha caamkaa soo dhiiba qofkii hayo addu lkhayda walmikhyata cirbadda iyo dunta keena uri jir sal alayh wasalam cirbadda iyo dunta keena wax kale iska daa ayagaas baa laga raba inaa keentid waxaa la diidi jiray in qofku uu maaragtay magaca dawladda xoolo ku cuno ama kusoo qaato waxbaa loo dirayaa qof waa la ixtiraamayaa waa la soo dhaweynayaa intaana waa inta lagu waajibtay intaana adiga maaragtay ayaan kugu soo riyeynaa la odhanayaa nabigu sal waa diidi jiray la odhan jiray qofkii meel u dirno wixii loo soo dhiibay oo dhan waa inuu keena nin baa la diray marka uu yimid wuxuu yaa rasuul allah intaan intii waajibka ahayd weeye intaan anaa laisoo hadiyeeyey nabigu sal wuxuu yihi maya haddaa gurigiina joogi lahayd buu yidhi lagu hadiyeyn lahaa waa maya magaca dawladda iyo kaarkeeda wixii lagu helo dawladda iskale waxaa ka hor la mamnuucay dadka shaqaalaha ah oo shaqada ku qaata mushaar inay shaqada waxaan mushaar ku qaataan looma ogola qofaan xabiisu fadhiyaa shaquu qabanaya shaqada ayadaa marka wixii ku qaatay oo loo garto loo qoray kaliya buu leeyahay laakiin qaban maayo waxay sii ayadana waa xaaraan kale wuxuu leeyahay hadaaya cumaali quluul shaqaalaha waxaa loo hadiyeeyaa khiyaano wey ayuu leeyahy nabigu sal allahu alayh wasalam waxaan ogol yahay maaha dadka maaragtay madaxda ah ayaa looga baahanyay inay noqdaan inay hormood ku noqdaan dhowrsanaanta iyo waalidiyeynta xoolaha muslimiinta beri cumar radiallahu canhu mar baa waxaa la keenay xoolo qaali ah oo dal fog laga keenay ayaa la keenay markii la keenay buu la yaabay xoolaha la keenay qaaliga ay yihiin iyo sida u dhamaystiran yihiin wuxuu yihi dadka xoolahan soo dhiibay oo keenay dad aamina wey
waxaa la yidhi yaa amiirulmu'miniin baa la yidhi adaa aamin noqday markaase aamin noqday yidhi beelaya waa isdhowrtay markaasay isdhowreen waxaa la yidhi haddaad adugu daaqi lahayd way daaqi lahaayeen baa la yidhi marka madaxda laftooda ficilkooda iyo suluugooda iyo dhaqankooda saamayntiisa ayuu leeyahay. waxaan kusoo khatimahayaa ummadda Soomaaliyeed waxay u baahantay in la baro ilaalinta hantida caamka ah. dhaqan ahaan iyo Soomaali ahaan annaga miyigaan ka nimid, miyiga hanti caamo taalo qofka Soomaaliga waxaa maaragta ku jira memorigiisa ama ku jira maxaa kula maskaxdiisa waxaa weeyaan hasheenna iyo hashooda wey, xoolaheenna iyo xoolahooda wey. howlaha ummadda baadiyaha ma taalo, miyi baa la yimid, magaala la yimid, marka qofkii intuu yaqaana buu raadinayaa. marka wuxuu leeyahu raadinayaa iyo wax cidkaa loo raadinayaa. wax ummadda leedahay baadiye ma yaallaan. waxaa loo baahan yahay in baadiyaha la geeyo xoolo ummaddu leedahay. geel lagu shaabadaynayo ummaddaa iska leh, ama camalka maxaa lagu dhejinayo matalan oo kale. laga soo bilaabo xataa guryaha loo baahan yahay qoysaska iyo waa in la baro hantida caamka ah in la ilaaliyo si dadku maaragtay waxaan ay ugu tarbiyoobaan, ay xurmeeyaan. ilaahi subxaana watacaala kuwii hantidooda ilaashada oo xalaal quutiyaal noqda allaha naga dhigo. jazaakum allah khayr. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.